بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن داوديال صاحب بيال وحاد كسر واتان برامشرادكنا halkan waa channelkeenu kulana YouTube ka madasha wararka qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal saaxiibayaal idinku soo gudbi doonana barnaamijyadan idinku soo maqana waxa ka mid noqonaya kiiska Ikraan Tahliil Faarax waa uu taagan yahay ilaa iyo haddana madaxda ugu sareysa ee dalka waxa ay u baadi goobayaan cadaalad farmaajo iyo sidoo kale qoladiisii nabad iyo nolol ayaa baxsada waxa laga celinayaa garoonka aadan cadde magaalada caasimadda Muqdisho shakhsiyaad nabad iyo nolol ah oo ku eedeysan kiiska dilka Ikraan Tahliil Faarax ayuu maxamed salaad ka celiyay garoonka aadan cadde ee magaalada caasimadda Muqdisho inay ka dhoofaan warar dheeraad ayaan daawadayaalideena halkan ayaan idinku soo gudbi doonaa doorka Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Xamse Cabdi Barre ku leeyihiin cadaalad raadinta Ikraan Tahliil Faarax ayaa sidoo kale daawadayaal soo qaadan doona oo aan barnaamijkeenan idinku gorfeen doona haradigii farmaajo ayaa waxay wili doonayaan in ay dalka burburiyaan hadaba arintaasi waxa ka diidaya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya warar dheeraad ayaan daawadayaalideena farmaajo iyo haradigiisi waxa ay haatan u soo qalab urursadeen sidii ay Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Xamse Cabdi Barre uga soo horjeesan lahaayeen oo ay u cuuriyaamin lahaayeen dawladda Curdunka ah ee la yabyabay 15 bishii May sanadkan 2022 hadaba kiiska Ikraan iyo sidoo kale macluumaadka kale ee ku gadaaman kooxdii nabad iyo nolol ee 5 sano ka talinaysay Villa Soomaaliya ayaa daawadayaal saaxiibayaal barnaamijkeenan idinku soo gudbi doona daawada saaxiib meel waliba joogto muuqaalkan like saar siina share garay inagu soo biir subscribe inoo saar channelka faraga maralka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada inuu halkan idinku soo gudbino waa ku maasantahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigan aragtidaada saliimka inoogu reeb markaana daawada saaxiib waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay inuu ku bilaawno Ikraan Tahliil Faarax oo daadeedu ahayd 23 ayaa la soo warinayaa in ilaa iyo haatan ay tahay mid maqan ah waxaana inta ugu badan qoyskeeda yihiin kuwa cadaalad u baadi goobaya oo daneynaya kaliya in mar uun maxkamadaha iyo sidoo kale hay'adaha garsoorka ay ka soo hor muuqdaan shakhsiyaadkii afduubtay sidoo kalena dilay Ikraan Tahliil Faarax hooyo Qaali Maxamuud Guhaad oo hooyada dhashay sargaalada Ikraan Tahliil Faarax ayaa waxa ay ahayd in muddo mid iyada hortaagan warbaahinada waxa ayna had iyo gooraale dhaleeceen hawada u mari jirtay madaxdii dalka ka ariminaysay 5 sano ee la soo dhaafay oo ugu horeeyay madaxweynaha xilliga Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ku xigay Faad Yaasin Xaaji Daahir oo isaga lagu xaminayay in uu ahaa milkiilaha dawladda inkastoo uu hayay xilka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA Faad Yaasin Xaaji Daahir iyo sidoo kale shakhsiyaad kale ayaa lagu eedeynayaa kiiska Ikraan Tahliil Faarax kiiskan ayaana Faad iyo shakhsiyaad kale uga xirxiran lugaha waxaana uu doonayaa Faad inuu ka baxsado inkastoo nidaamka dalka hadda la wareegay iyaguna daneynayaan in ay cadaalad waafajiyaan kiiska gabadhan maqane ah in muddo waliba muddo hal sano qoyska ka dhalatay Ikraan Tahliil Faarax ayaa ilaa iyo haatan waxa yihiin kuwa cadaalad sugayaal ah oo aanan cadaalad helin waxaana hooyo Qaali Maxamuud Guhaad iyo sidoo kale xubnaha kale ee qoyska ay ka quusteen cadaalad ay ka helaan gudaha Soomaaliya waxaana iminka xoga inuu helnay sheegayaan in qoyska ay u ruqaansadeen maxkamadaha caalamiga halkaasina ay ku qaadayaan dacwadda gabadhooda Mahad Maxamed Salaad oo agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA ayaa la soo warinayaa in uu garoonka aadan Cabdulle Cusmaan aadan cadde ka celiyay shakhsiyaad fara badan kuwaas oo doonaya inay dalka ka dhoofaan oo ay isaga tagaan ama ay isaga baxaan maadaama ay ku eedeysan yihiin kiiska afduubka iyo dilka isugu jira ee lagu la kacay sargaalada Ikraan Tahliil Faarax shakhsiyaadkan ayaa waxay fahamsan yihiin in Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Xamse Cabdi Barre ay markaasiba xilli kasta weerari karaan ayna uga yeeri karaan maxkamadaha dalka sidaasina lagu xukumi karo waxa farmaajo uu ku talinayaa in dalka laga baxo oo la aado wadamada deriska la ah
markaasiba nabad iyo nolol amaba nabad iyo nolol si weyn u taageera. haddaba inta ugu badan hadda kooradigii farmaajo waxay yihiin kuwa aad u qarbudaya dowladda curdunka ah ee la yabeebay 15kii bishii May sanadkan 2022. mahad maxamed salaad iyo sidoo kaleba madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo lagu daray xamse cabdi barre ayaa haatan waxay wadaan dadaalo xoogan oo ay arrintaasi uga hortagayaan, waxayna soo faagfaagayaan kiisas dhowr ah iyo gabadfallo culculus oo ay dalka ka geysteen muddadii ay talinayeen nidaamkii hore ee dalka ee la magac baxay nabad iyo nolol. farmaajo ayaa loogaga guuleystay doorashadii dalka ka dhacday 15kii May, taas oo lagu qabtay hangarka Vision xeyndaabka xalane ee magaalada caasimadda Muqdisho. farmaajo iyo sidoo kaleba kooxdiisii kale ee nabad iyo nolol ayaa haatan waxay yihiin kuwa isku dayaya sidii ay u cuuriyaamin lahaayeen dowladdan curdunka ah ee uu hogaaminayo xasan sheekh maxamuud. waxa ay baxsad ka yihiin kiisas dhowr ah oo ugu horeeyo kiiska sargaalada Graan Tahliil Faarax. lama oga sida ay waxyeeli doonaan maalmaha inagu soo wajahan iyo sidoo kaleba saacadaha fooda inagu soo haya, balse xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sidoo kalena aragti ahaan taabacsan madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa waxay yihiin kuwa ka qayb qaadanaya burburinta dowladda dalka ka dhalatay ee uu hogaaminayo xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaarahana uu ka yahay xamse cabdi barre. farmaajo waxay leeyihiin qobarada ka faalooda arrimaha siyaasadda dalka arrintan lagama aqbali karo, lagamana yeeli karo. waa in lala dagaalamaa isla markaana meel cad looga soo jeestaa taliskiisii iyo sidoo kaleba shakhsiyaadkiisii la howlgelayay muddadii uu ka arriminayo madaxtooyada qaranka ee Villa Soomaaliya. xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu doonayaa in uu dukum daakum ka dhigo xubnihii ku jiray xisbiga nabad iyo nolol oo uu hogaaminayo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, kuwaas oo haatan isku dayaya in ay Soomaaliya burburiyaan. inkastoo aragtidaasi dadka falaqaya siyaasadda ay ku macneeyeen inay tahay mid daciif ah, waxayna sheegeen in hal shakhsi ama shakhsiyaad aanan gaarin 100 ay burburin karaan dowladnimada Soomaaliya. xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kaleba xamse cabdi barre oo dhawaan ku dhawaaqay golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa waxay yihiin kuwa aad u wada howlaha markaasiba qaranku u egmaday dowlad dhiska ayay weli ku guda jiraan. dib u heshiisiin ayayna iminka gudagalayaan maadaama xukuumaddii ay sii daayeen golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyana uu si aqlabiyad leh u ansixiyay. baarlamaanka Soomaaliya shakhsiyaad ayaa ka hor yimid xukuumaddii lagu dhawaaqay ee uu magacaabay ra'iisul wasaare xamse. shakhsiyaadkaas ayaase waxaa la tilmaamay in ay ku duugan yihiin aragti ahaan madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo sifo sharci darro ah muddo sanad ka badan ku fadhiya madaxtooyada Soomaaliya ayaa weli u muuqda mid markaasiba u cilqaba burburinta nidaamka dowladnimada Soomaaliya iyo daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed. waa sida ay falaqeynayaan amaba ay odorosayaan siyaasiyiinta falaqeysa amaba ka faaloota arrimaha siyaasadda waddanka Soomaaliya. koox tiro yar oo uu xildhibaano markaasiba ka dhigay ayuu markaasiba damcay Farmaajo in uu ku arbusho fadhigii baarlamaanka isagoo u soo dhiibay mooshin ka dhana xukuumadda curdunka ah. lafta garan oo ka mid ah dadkii uu sida xooga ah ku soo saaray kuraasta ayaa Farmaajo kala shaqeeyay qorshihii markaasiba fashilmay ee lagu carqaladeynayay fadhiga baarlamaanka. arrimahan ayaa kuwa muujinaya in ay weli jirto cabsidii laga qabay maafiyadii xukunka laga eriyay ee ay horboodayeen Farmaajo iyo sidoo kaleba Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA, wariyihii hore ee telefishinka Al Jazeera iyo la taliyihii hore ee amniga madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. dadka siyaasadda falaqeeya ayaa ku talinaya in dowladda cusub ay ka gaashaamato hagardaamada ay dadka Soomaaliyeed la damacsan yihiin Farmaajo, Fahad Yaasiin iyo sidoo kaleba xulafadooda, kuwaas oo haba yaraatee aan lahayn dal jecel iyo sidoo kaleba turinsho midnaba. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxaa lagu eedeynayaa kiisas dhowr ah ugu horeeya kiiska Ikraan sida uu uga soo garbaxo ayay shacabka Soomaaliyeed inta ugu badan isha ku hayaan
waynu idila wadaagi doonaa daawadayaal xogaa iyo sidoo kale waa macluumaadka ku soo kordha daawada saaxiib muuqaalkan like sar sina share garay inagu soo biir subscribe inoo saar channelka furaga maraalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada inuu halkan idinku soo gudbino waa ku mahadsan tahay daawadayaal socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo.